بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابت وايد سلامي مالي وناكسن. waxaan rabaa inaan muuqaalkan idin kula wadaago hal su'aal oo aan rabo inaan isweydiino dhamaanteen kadibna aan sheeko yar idin dhaxgeliyo tusaale si aan maaragtay su'aashaas isku la fahno jawaabteeda. Su'aashana waxa waaye hadii lagu weydiiyo tusaale maanta lagu dhaho qiimahaaga maxaa waaye? What's your price? qiimaha adiga aad goyso muxuu yahay? maxaa ku jawaabi lahayd? intaan marka jawaabta u gelin waxaan rabaa inaan dhaga kale u rogo mar hadii qiimo laga hadlo waxyaabaha ugu fiican oo aan wax ku ogaan karno ama ku fahmi karno waxa ugu horeeya ganacsiga ugu horeeya. hadii maanta aad suuqa tagto oo aad saacad iibsanayso saacada dabcan qiimaha lagu sheegayaa oo la gado qiimahaas waa kala duwan waxa laga yaabaa saacad inay $5 joogto saacad inay $10 joogto saacad inay $20 joogto saacad kalena inay $50 joogto laga yaabaa. dabcan qiimahaas kala koreeyo waxba sababaya waxa saacadba saacada kale ka qaalisinaayo waxa jiro feejaro dabcan ay dheertahay saacada kale ha ugu horeyso tayada ha ugu horeyso design-ka iyo shape-ka oo sameysanta ha ugu horeeyo ku xigto color-ka dabcan lagu xulan karo inta aad isticmaali karto oo aysan isbedelayeen waxyaabahaas oo dhan waxay jaangoonayaan shayga ay gadinayso qiimihiisa ay jaangoonayaan. saas la mid marka hadii lagu dhaho marka adiga qiimahaaga maxaa waaye ama value-ga aad leedahay waa imisa hadii lagu dhaho maxaa ku jawaabaysa? intaan ka jawaabay marka waxaan rabaa inaan hal tusaale maaragtay ku bixiyo isla su'aasha dhexdeeda. tusaale caagan biyaha ah xaafadda dukaamada xaafadda ku yaalo waxa laga yaabaa inuu ka joogo 5,000 shilin Soomaali inuu ka joogo laga yaabaa. isla caagan hadii la qaado oo maqaayad la geeyo oo maqaayadooba yaalaha waxay maqaayadda gadaa 7,000 gadaysa. isla caagii hotel maqaayadaha oo VIP-da ah ee dadka ku caawiyaan isugu tagaan waxa la iibiyaa $1 la iibiyaa. isla caagii hadii hotel aad tagto $1 laga iibinaa. isla caagii hadii airport-ka aad tagto waxa laga yaabaa hadii ay gadanayso in $1 bar ku gadato. su'aasha marka waxay tahay maxaa isbedelay? caagii ma isbedelay? biyihii ma isbedelay? packaging-kii ku qornaa ma isbedelay? dabcan maya. waxa kaliya isbedelay ee lacagtaas kala sarreysay waxa waaye waa meesha waa location-ka waa ama place-ka markaas ay yaaleen. adiga marka hadii lagu dhaho qiimahaaga sheeg maxaa waaye? qiimahaaga waxa qeexay meesha aad joogto qeexaysa. hadii meesha aad joogto ay tahay meel aad u liidata dadka iyo inta kugu xindaaban yihiin dad complain-ka iyo cabashada aad u badan yahay adiga aadan agtooda wax value ka lahayn dabcan adiga qiimo ma leh. sida kaliya qiimaha ku ogaan karto waxa waaye inaad ag joogto dadka ay tahay inay qiimahaaga iyo value-ga aad leedahay ogaadaan. yaa waaye dadka dhiirigelinta ka helayso dadka ku caawinaya dadka aad is caawinaysaan xaggaas qiimahaaga ku jira. marka qof walbo qiimo leedahay value waa leedahay value-gaaga waxaadna ku ogaan kartaa mar walba meesha ay noloshaada ama position-ka aad joogto waxa qiimaha qofka qeexay. marka dooro meel laga qiimeynayo value waa ku leedahay aragtidaada iyo tusaalooyinkaaga laga soo dhaweynayo adna wax ku biirin karto adna lagu soo biirin karo. inaas la fahna oo maleynaya su'aasha asxaabta khayr aad rajayna insha Allah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.